Tilmaam Academy. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada koorskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary in Use levelkiisii elementary oo ah levelka ugu hooseeya. Maanta waxaan bilaabi doonaa insha Allah unit 6 oo aan uga hadli doono ereyo la xiriira health and ills. Ereyada la xiriira caafimaadka iyo xanuunada waxyaaba la xiriira aan fiirin doonaa insha Allah. So let's see it section 1. Section A aan isla fiirina markaan. A. How are you today? I'm very well, thanks. I'm fine, thanks. I don't feel very well. I must go home and rest. I'll probably be okay tomorrow. I feel ill. Can you get a doctor, please? Perhaps it's a serious problem. That fish was bad. I think I'm going to be sick. I want to vomit. All right. How are you today? Maanta xaaladda ka waran qofka weydiiyey. Xaaladaada ka waran, xaalada caafimaadka see waa camal. I'm very well, thanks. Haddii xaalkaaga okay u yahay waxaad dhahaysaa I'm very well, thanks. I'm fine, thanks. Waa qaab kale oo u dhiganta midii hore. I'm fine, thanks. Haddii xaalkaaga wax yar wajac ku haysto zaa'id ma tihid laakiin wax yar waxaad dhihi kartaa I don't feel very well. Maanta xaalkayga ma fiicno. I must go home and rest. Waa in xaafadaan tagaa then aan nasiino qaataa. I have to take a rest. Waa inaan nasiino qaataa. I will probably be okay tomorrow. Waxay u badan tahay berrito inaan caadi noqon doono. Let's say qandho yaraad dareentay caajis xaafadda tagtay waa nasatay horaa kasoo kacday subax dambe adoo fresh ah. So xanuunkaas xanuun weyn maahan. Waxaa iska dhigi kartaa markaasoo kale I don't feel very well. I must go home and rest. Jiradan jiro oo zaa'id waa markaan. I feel ill. Waxaan dareemayaa jiro zaa'id ah. Jiro caadi xanuun. Can you get a doctor please? Dhakhtar ma ii wadi kartaa? Perhaps it's a serious problem. Waxay u badan tahay ama laga yaabaa inay tahay serious problem. Jiro oo zaa'id inay tahay laga yaabaa. Serious ah. Oo dhab ah mana. That fish was bad. I think I'm going to be sick. Like malaya cuneen marka waxay leeyihiin malayga cunay ma ahayn mid fiican. That fish was bad. It was not good. Malaygaas ma fiicneen. I think I'm going to be sick. Waxaan u malaynayaa inaan ku xanuunsan doono. I'm going to vomit. Matag ayaa igu qabanayaaba. Ku matagayaaba. I want to vomit. Inaan matag iga qabanaysaaba. Ma fiicneen menahaas. Marka ereygaas muhiim waa inaad fahantaan sick. Jiro waaye. I am sick adii kartaa. Today I am sick. Maanta waan jiranahay markaas. Everyday problem. Problems oo everyday oo dadka qabsada say u sheegi karaan. Maanta madaxa xanuunaysa u dhigi kartaa. Caloosha xanuunaysa u dhigi kartaa. Say u dhigi kartaa waxyaabahaas oo kale. Bal hambar ila fiiriyo ereyadaas kuwa ugu caansan. B. Everyday problems. Have you got an aspirin? I've got a headache. I've got toothache. I need to go to the dentist. I'm going to bed with a hot drink. I've got a cold. Alright. Have you got an aspirin? Ma haysaa kiniiniga aspirin? Madax xanuun ma heli kartaa kiniinigaas? I have got a headache. Waxaan qabaa maanta ihaayo headache. Madax xanuun. Ereyga muhiimka nooca inaan fahanno maanta waxay tahay ereygan ugu dambeeya egg. Ereygaas meelo badan ku arki doontaan waa kana haddane. Marka xubintii aad taqaaneen jirka madaxa aad taqaaneen head aad taqaanay egg ku darabis egg headache madax xanuun. Tooth iligta waaye. Haddii ilig ay ku xanuun waxaa dhahaysaa ii sheeg I have got toothache. Ilka xanuun ayaan dareemayaa. I need to go to the dentist.
waa inaan aadaa dentistaha dhakhtarka ku takhasusay ilkaha. kii hore muxuu ahay have you got an aspirin? Aspirin ma haysaa kiniinigaas. I have got a headache. I have got a toothache. ilka xanuun ayaa ahaayo. I need to go to dentist. ka waran haddii uu ku xanuunayo dhabarka waxaan dhihi jirnay back. waxaa dhehaysaa I have a backache. dhehaysaa kasoo qaad caloosha ayaa ku xanuunayso maxaa dhehaysaa I have a stomach ache. stomach aan naqaanay egg le ku darbes waxaa dhehaysaa I have a stomach ache. okay, I have got a stomach ache adhihi kartaa. okay, I am going to bed with a hot drink. inaan seexdaa oo wax kulul nacabaa. I have got a cold. hargab ayaa ahaayo. I have got a cold. hargab ayaa ahaayo. okay, problems people have for many years, all their lives. section C baa la fiiriyay problems oo dadka muddo aad u fara badan soo hayn jiray waqti dheer. balhama ila fiiriyay kuwaas. C. Problems people have for many years or all their lives. I get hay fever every summer from flowers and grass. I sneeze all day. My little brother has asthma. Sometimes he can't breathe. He can't breathe. okay, I get hay fever. waxaa ay haayo dhehaysaa hay fever waa qandho. fever qandho laga qaado cawska laga qaado waaye. maybe inaysan caan ka ahayn laga yaaba dhulkeena. laakiin qofka waxaa ku leeyahay aniga qandhadaas ayaa hayso. every summer ayaan dareemaa. I get hay fever every summer. xilliga summerka marka la gaaro markasta qandhadaas ayaan dareemaa. waxaana ka qaadaa from the flowers and grass. ubaxyada iyo cawska ayaan ka qaadaa. I sneeze all day. maalinkaasoo dhanne waxaan ku waashaa hindis. sneeze hindis waay. My little brother has asthma. walaalkii midka yar ayaa wuxuu qabaa asthma. ereygaas see lagu dhawaaqayaa asthma adhesa bis. waxaan tirada badan meesha ku qoran ma sheegaysid. waxaa sheegaysaa keliya asthma. sometimes he can't breathe. sometimes marmarka qaar ma neefsan karo sababta wuxuu qabaa asthma ayuu qabaa asthma. marka muhiim waaye ereyadan la xiriira xanuunka iyo haddii isbitaal aad tegaysid haddii qof u sheegaysid Englishka muhiim ayay ku tahay markaas. illness in hot or tropical countries. wadamada kuleelaha ah oo Soomaaliya oo kale ah ereyada ama cudurrada badanaa ka shaqeeya. meelaha qaar ma ka shaqeeyaan. bal hama ila fiiriyo kuwaas. D. Illnesses in hot or tropical countries. Mosquito. In some countries, mosquitoes can give people malaria. The drinking water was bad, and many children had cholera. mosquito kaneecada waaye. in some countries mosquitoes can give people malaria. wadamada qaar kaneecada ayaa dadku waxay ku ridaa ama ay u gudbisaa malaria. wadamada qaar waaye. special wadamada aan ka sheekeyno waa wadamada kuleelaha ah. tropical countries, hot countries. The drinking water was bad. biyaha la cabayo oo wasaq ah oo aan fiicneen. many children had cholera. caruur aad u fara badan waxaa ku dhaca cudurka kolooraha cholera like shubanka waaye. cudurkaas ku dhaca. okay, section E, serious illness. waxaan fiirin doonaa xanuuno oo zaa'id ah. xanuunada zaa'idka ah oo qofka haddii ay ku dhacaan oo dhimasho u badan tahay ama uusan kasoo kabsan karin si fudud. madax xanuun iyo calool xanuun maaha kuwan. waa serious illness. waa xanuun oo halis ah. bal hama ila fiiriyo kuwan xanuunada halista sida loo sheegaa. E. Serious illnesses.
Every year, cancer kills many people who smoke. My father went to hospital when he had a heart attack. Okay, every year cancer kills many people who smoke. Sanad kasto kansarka ayaa wuxuu dilaa dad fara badan oo caba sigaarka who smoke. My father went to hospital. Aabahay isbitaalka ayuu aaday ama loo waday when he had a heart attack. Markii uu ku dhacay heart attack, wadnaha ayaa ii sheeg istaagay ama wadnaha ayaa laga qabtay. Heart attack, wadna xanuun waa mina, wadna xanuun. Cudurka wadna xanuunka ah waxaa loo yaqaanaa heart attack. It means qofka hadduu ku dhaco waa halis waaye. Common mistakes, khaladaad badana dadka ay galaan waxaa ka mid ah my father had a heart attack. saasina dhihi kartaa waaye. My mother had a heart attack. waxaa ku dhacay wadna xanuun. ma dhihi kartid my father got, ma dhihi kartid. Ereyadan oo kale ma la isticmaali karo. marka say u sheegaysaa waxaa dhihi kartaa my friend had a heart attack. saaxiibkii waxaa ku dhacay wadna xanuun ayaa ku dhacay. It means wadna xanuunta ku dhacay that's a serious illness waaye, waa cudur halis ah. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagaban doonaa chapter 6 expressions, sidee qof uga wareysan kartaa arrimihiisa caadiga ah oo la xiriira caafimaadkiisa waxyaabahaas kale. bal hama aan sal dhegeysano. F. Expressions. Do you have a healthy diet? Yes. I eat lots of fruit and vegetables. Do you exercise? Yes. I like swimming, jogging, and cycling. They're really good for you. I feel stressed. Do you? You need to relax more and don't panic about work. Alright, bal expressions ka aan fiirna bal erey caadi, su'aalo caadi iska fudud. Do you have a healthy diet? qofka waxaa weydiinaysaa adiga cunno caafimaad lama cuntaa, healthy diet ma leedahay, cunnadaada cunno dheelitiran ma tahay oo laga fekeray. Yes u dhahay qofkan, I eat a lot of fruit and vegetables. Yes, waxaan cunaa fawaakih iyo khudrawaad aad u fara badan cunaa. waxay kala yihiin fruitska like cambaha, babaayga, waxyaabahaas kale. Vegetables waxyaabahan kale sida ansalaatada, begelka, waxyaabahaas kale. marka af carabi waxaa la kala fawaakih iyo khudrawaad, waa fruits and vegetables. okay, qofkaas marka micnaheedu xitaa haddii uu cuno khudaar fara badan hadduu cuno micnaheedu xitaa tahay health dietkiisa wuu fiican yahay. Do you exercise? adiga ma sameysaa exercise? ma alimiteysaa adiga? Yes, I like swimming. aniga waxaan jeclahay swimming, waxaan jeclahay jogging, rucleynta in la ordo subaxdina waan jeclahay. Cycling sidoo kale, baaskiil inaan wado oo soo jijiray asina waan jeclahay. They are really good for you. dhammaantood way ku fiican yihiin, caafimaadka u fiican yihiin. I feel stressed. qofkan hadhaysaa waxaan dareemayaa stress, aan dareemayaa hadhaysaa stress like qofka markuu isku booqsan yahay, xaaladiisa aysan fiicneen, marka tala la siinayo waxaa leeyahay do you, adiga miya you need to relax, nasaa lahay more, you need to relax more, wax badan naso, seexo, hurdo fiican qaado, and don't panic about work, shaqadan ha isku murjinin, ha ka fikirin. That's it. inshallah chapter 6 meeshaan ku jiri doona inshallah. fadlan isku daya inaad ka shaqayn kartaan exercise-ka chapter 6 uu wato si aad u xaqiijisid casharka in aad fahantay 100%. waxaa inoo balan inshallah casharkan casharka xiga iyo unit 7 inshallah.